walaal ii war waa fiican baa soo dhawow gabadha dhakhtarada waraaqahan isoo siiso gabadha meesha joogta u tag bay tiri waa gartay marka ma aqo waxay iigu soo qaadagtay laakiin iyadaa i tiri kolay laakiin wixii baaritaane waxaa iyadaa ii dhammaysay soo dhow abaayo adoo magacaaga igu bilaabay shidaal i yidhaahdaa sidaa lagu yidhaahdaa haa inta lambarkaaga ii sheeg lambarkayga 7 haye 66 haye 28 meeqa jirtaa siddeed 38 siddeed baa jirtaa haa xaafaddaa degantihiin ii sheeg abaayo baadiyaanka imi walaale baadiya maxaafad xaafad buu kala leeyahay baadiya magac ma leeyahay meel baadiyaasha magac bay taa leeyihiin wallaahi magacana u garan mahayo walaalay magaceeda ma xasuusatay haa magac gooy magaalo iyo waxba uma dhowe waa cilli ceersila haa waa meel cilli ceersila waaqla weeye haa soo dhawow jiddo dib ma lahan jiddo waxaan rabaa inaan kaa cabiro dhiigga cadaadiska dhiigga haa ma fahantay waxaan rabaa inaan ogaado bal dhiiggaaga suu jirka u dhex marayo gabadha haddaayay soo cabirtay may dhib mala aniguna inaan ku ogaadaan rabaa maadaama iisoo kaa dirtay haa ma dhiig baad iga qaadaysaa may dhiig kaa qaadi mayo waxaan cabirayaa keliya cadaadiska dhiigga micnaha waa dhiiggu suu jirka u dhex marayo waa mashiinka dhiig kaa qaadi mayo dusha gacanta dusheedan kaaga xiray ma fahantay hadda walaal iga dhaaf haddaaya laysoo cabiray may dhib ma laha aniguna inaan ku ogaadaan rabaa maadaama la iisoo kaa diray haa anna waxaan rabaa inaan ku ogaado ku cabiro shaqo kaloo ii dhiman bay gabadha ii soo didha shaqo kaloo may tanna waa kuu raacinaya way isla socotaa way wax isla socdo waxaa jira system isla socdo aan kala hadhin baa jira ma ogtahay marka isaguna wuu ku jiraa dhib ma laha gacanta saa kaaga xiraya daqiiqad ma aha waxba xanuun iyo wax ma may waa fudud yahay xanuun male ma fahantay marka culays ma aha xagee ku xiraysaa faraha halka gacanta cududda cududda soo ma taqaan haa halkan koraa iga xiraysaa haa soo dhow jiddo waxaan rabaa inaan su-aalo ku weydiiyo su-aalahaasoo la xiriira uurkaaga iyo xaaladaada iyo meeshaad ku dhali jirtay iyo ii sheegay xog baan rabaa inaan ku weydiiyo ma fahantay markaa soo dhow abaaya maxaa la ii weydiinaya hadday gabadha waa i wareysatay way ku aragtay soo maaha halkana kumaysa soo dirin halkana waxay kuu soo dirin in lagu wareysto xog dheeraada ama war intii ka badan in halkan lagaaga helo xogtaada dhammaystiran ma fahantay oo idinku dadka warkiisaaba iska rabtaan waxaan rabnaa inaan ogaano hooyadan ilmaheeda horey markay dhali jirtay waxyaalaha la kulmi jirtay meelahay ku dhali jirtay wax caqabada miya ilmayaasha hore kala kulantay ilmahan intee buu ii sheegay intee bil buu yahay waxaas oo dhan aan ogaano waxaas walaale anay ii taallay maxaa faa'iido adiga kuugu jira aniga waxaa faa'iido igu jira hadda xarun caafimaad soo ma joogo waxaa xarun caafimaad loo faray in hooyo xogteeda dhan la hayo waxaa jira marmar hooyooyin xanuun lasoo darsaa jira ilmuhu uurka kaga meydoo kalaa jira ii sheegay ilmayaasheeda hore dhiig bixi jirta waxyaalahaasoo kalaa jira marka waxaan rabaa inaan micnaha xogtaada ogaado sidaad awal inaad waxyaalihii kugu dhici jira iyo ii sheegay inay xogtaasoo dhan helaan rabaa maxaad ka faa'iideysaa marka wixii ugu dhici lahaa iguba dhacee hadday ilma iga dhinteen haddaan dhiig baxay wixiiba dhacee maxaa hadda interesoo adiga kuugu jira hadda waxaa igu jira maadaama ilmayaasha hore wax kugu dhaceen hadda lacala dhiig baxbaaba jira ama ilmihiiba uurka kaaga meeday hore oo kalaa jira marka waxaan rabaa haddii caqabadahaas hore u dhaceen kan inay dhacaan way u dhowdahay moogtay maadaama horeba u dhaceen marka waxaan rabaa in laga sii digtoonaado wixii marka aniga igu soo socdo dhici lahaa idinku joojinaysaa wax qadar ilaahay baa jirta laakiin dadaalkeedaa jira isaguna in haddii la dadaalo oo dhibaatooyin badan laga hortago oo dawooyin hooyadu qaadato oo hooyada cisbitaalka ku xidhnaato oo xaaladeeda daqad loola socdo wax badan baa moogta fududaanaya waxaa laga yaabaa inuu ilaahay sidaa ku fududeeyo ma fahantay markaa su-aalahaas raba inaan ku weydiiyo ka warranba haddaad meesha ku dhashido lagugu daryeelo dhiig badan uusan kaa bixinba hadda haddii dhib igu timaadaa la i keenahayaa dheh saas dheh haddii markaan dhalo kadib ama dhalmada dhib ka yimaado baa la i keenahayaa soo maaha mise anoo socdooba caafimaad qabaa bay nii imaanaya adoo soconayo nabarku ku hayo soconayaad halkaa ka soo gelaysaa waa lagu dhalinayaa inta xanuunka iyo dhibaatadii dhiigbaxa adoo xanuunsan lagaa soo balqbalaqsiin lahaa adigoo fiican oo soconayaa lagu dhalinayaa dhiiggaagaa laga hortegayaa waa lagu daweynayaa ilmaha yar baa daryeel la siinaya hadduu u baahdo idinkoo caafimaad qaban hadhow baa soconaysa dhiig baxay baratoona kugu walaale waa haddii hadda dhibo timaado haddaysa waxba dhiba imaanin gurigaygaha isaga dhalaya carruurtayda reerkayga inaa iska dhex joogaa ii fiican inta sariiro baadiyo reer gurigiis iyo meelaana aqoonaaba ku dhali lahaa
jidoy haddaan u baahdo markaasaan u baahdana laysoo qaado oo markaa de in lagu xaalad lagu soo gaarsiinayo ma ogidba waxaa fiican wax in hadda laga wixii ii hortago qadaran waa ii qadaran yihiin qadar kasta horta ilaahay bay ku xiran tahay laakiin waxaa jira waxaa la yidhi daweynta waxay ka fiican daweynta waxaa ka fiican ka hortaga ma fahantay haye haddii ka waran intii laga soo balaqbalaqsiin lahaa oo dhiig kaa bixi lahaa oo xaaladda serious gaari lahayd oo kooma geli lahayd adigoo fiican markuu nabarku qabto lagu soo qaxay halkan ku dhasho lagugu dhaliyo dhiigaaga laga hortago lagu daweeyo xaaladaada caafimaad la socdo lagu cabiro aad fiicnaato hal habeen joogto ama xitaa subax haddaa dhashay garabtii aad fiicnaato gurigaaga baad aadi kartaa adoo soconay caafimaad qaba ma fahantay sidaas see u aragtaa wallaahi hadda walaal waa waxay ugu cusub waxaan weligay maqlay maba ahanba horta anigu meeshadan isaga dhali jiray dhibaatana ma arki jirin dhib kalena ma haleeli jirinin waa wax igu cusub waa war cusub aad keentay adugu sidoy ma keeni warkaan hadeer ayaama dhaweyd caqabado badan oo noocaasaa dhacay moogtahay hadda ayaan dhaweyd hooyo waxaa naloo keenay intay saasoo kale cidlo ugu dhashay iyadoon la ogeyn isu go-day ilaa iyo dabadiiba isu jeexantay ma fahantay keligeed baa cidlo ku dhashay markay isu jeexantay waa dhiig baxday ilmihii koorhkiibaa ii sheegay loo gooyey mar koorhkii loo gooyey ilmihiina dabayshii iyo wixii meesha ka dhacayay lamihii bay ahayde baa galeen ilmihii yarka ahaa xitaa xaaladda serious bay gaadhay ma fahantay sidoo kale hooyo kaleo iyadana ayaa dhowda iyadana naloo keenay intay saasoo kale u dhiig baxday cidlo ku dhiig baxday 3 casho kooma ku jirtay de dhiig baa ka dhammaaday ma fahantay oo xaaladeedu halis gaadhay garaaba baa la keenay sidoo kale ilmaheediina saasoo kale isagana intay sonkorta dhiigga maaragtay intay dhacday isagana serious oo taas teebay ahayd waa gabar miyi laga keenay aanan meesha degantahay ma aqoon laakiin gabar miyi laga keenay weeye oo miyi ku dhashay haye sidoo kale gabadh baa iyana intay miyi ku foolatay bay dhikar bay qabtay dhikarka waa maqal jiray laakiin ma aragay dadka waaweyn ayaan maqal jiray dhikar bay qabtay markay meeshii ku foolatay baa dhiigga ku kacay markuu dhiig ku kacay hooyadii waa iscuntay carabkeedu dhan bay calaashatay daamankiiba wada dhiig ka dhigtay meel kasta iskoosatay waa barartay hooyadii koomay gashay iyadoo sakaraadaa la keenay ma fahantay marka hadda caqabadahaas oo kale adiguna hadda waxaad ii sheegtay inaad mar hore dhiig baxday mar kale kugu soo laaban kartaa marka caqabadu hadday mar kugu dhacday way kuu fududa inay mar kalena kugu dhacdo ma fahantay marka caqabadahaas oo dhan adoo fiirinaya oo waxaas oo dhan ka digtoon oo inaad hore dhiig bax kugu dhacay ka digtoon oo caqabadahaas oo dhan hooyada uur kale inay iska nugushahay wax walba ku dhici karaan ay adoo digtoon meeshaadan iskaga dhal annagu waa kuu shaqaynaynaa si wanaagsan baa kugu shaqaynaynaa dawadaad leedahay baana ku siinaynaa ilmaha yar baana kuu daryeelaynaa halkaaganaad jiifaysaa sariir gaar aad leedahay ilmaha yarkaas sariir gaaruu leeyahay meeshiinaas aad joogaysaan markaad fiicnaataanna gaari baad raacaysaa gurigii baad aadaysaa hadda waxaa leedahay gurigaaga ka soo tago halkan ku dha gurigaaga ka soo tag halkan gurigaaga waa laguu celiyay markaad fiicnaatid intii adoo sakaraada lagaa soo qaadi lahaa adoo fiican ku noqon soconaya maxaa ka wanaagsan laakiin idinku miyaad hadda ogaateen inaad dhib igu soo socoto hooyadu markay horay maaragtay dhiig bax u lahayd hooyada ilmayaasha dambana way kusoo noqnoqdaa marka way ku fududahay hadda wax walba way kaaga fududtay inuu dhiig bax kugu yimaado hadda dhiigaaguna wuu hooseeya inaad u israadinaysid baan u malaynayaaba hadda waaba cabsadayba sidoy annaga hooyada caafimaadkeedaan halkan u joognaa waxaanu ka jecelahay hooyo iyo ilmo caafimaad qabo isla socda ma jirto ma fahantay annaga keliya waxaanu ka baqanaa inaad dhiig bax kugu yimaado wadnuhu ku dhaco maadaama hadda dhiiggaagu yar warqadda waxaa ku taalla dhiiggaaguna aada u hooseeyo dhiig yaraanta hooyada dhiig yaraantii waa waxyaalaha ka qayb qaata inay dhiig baxdo inta kugu jirtaa kaa baxaysa ma fahantay markii insha allah nabarka ku qabto alaabtaada soo qaado maryahaaga waxa ilmaha lagugu qabanayo xaggan imow ii sheegay waa kuu shaqaynaynaa ilmaha yarkaa baanu kugu shaqaynaa adigaanu kuu shaqaynaa alxamdulilah hadha odoo fiican adigii odagaaga gaadhigiinu isla taga bal horta warkaas walaali waa soo hubinaya warkaas inuu jiro oo qof isagoo soconaya meel inta tago lagu soo dhalinaya gurigeeda aan ahayn warkaas horta waa inaan dib ugu noqdo soo hubiyo islaamihii deegaanka hadda gabdhaha halkan jiifa way dhaleen gabdhahan 3 xamin hadda custaalka jiifaan gurigoodii bay ka yimaadeen iyagoo gaari wato soconaya yimaadeen markay soconayaan iyaga abcagahooda ku yimid iyaga cagahooda ku yimid halkaasay soo galeen waa fool baan haysa ay dhaheen waa la fiiriyey nimankooda waxbuu furnaa waa la sugay caadi way u dhaleen haddana ku halka iyaga ilmahooda jiifa galabtay iyagoo la bisas tagayaan hadduu lahaydin horta warkaas waa inaan soo helaa warkaas inaan raadiyo weeye horey uma maqal horeyna uma maqal hadda walaale adiguna gabar yar baa tahay
maaragtay hadda gabar yar warkeed hadiiba lama qaadan karo sax marka inaan soo hubiyaan rabaa haddii alla idmo dhib male soo hubi insha allah waa isla xiriireynaa hadda xarunta markii koowaad aad tiraadid miya haa waa markii kooda hadda ay ugu horeysay insha allah ku dadaal jidoy ku dadaal inaad xaaladaada caafimaad la socotid ya bal hadda waay waa inaad sagaalka gasho soobaad sheegin haa gabadha dhakhtarada ii sheegtay xilligaa doontaa dhali kartaa ma fahantay haa marka markuu nabarku ku qabto dhalmada kadib qaybtan yadaas kale wixii adeeg loogu qabanayo wixii dawo lagu siinayo hadday umulin tahay waa lagu dhaliyaa ilmaheeda loogu daryeelaa hooyada hadday daweyn u baahataa lagu siiyaa jiif hadday u baahataa la jiifiyaa xarunta dhan iyagaas kale ma fahantay marka ka waran haddii aad custaalka ku dhashid intaad miyiga kasoo tagtid oo marka nabarku ku qabto aad custaal ku dhashid ka waran ma gurigeyga baan ta kasoo tagaa reer gurigood ku dhalaa may reer gurigood ma halkan adaaba iska leedaha reer gurigood maba aha oo yaa ii gaday halkani soo guri reer islaameed ma ah may reer islaameed gurigiisa ma waa custaal hooyaa loogu talagalay wadna hooyooyinka dhan hadda hooyooyin dhalaa jiifa ma fahantay kama xigtid guryahooda inta ka yimaadeen ba halkan ku dhale inta guryahooda ka halkan ku dhale weliba joogaana dawo iyo alaab iyo wax kasta ka qaateen ama la-aan baaba hayse jidoy camal la-aan maaha waa qeyb caafimaadka ka mida haye ma fahantay marka ii sheegay haddii hooyadu markay nabarku qabto bay soo tegaysaa ama hooyooyin xitaa waxaa jira ii sheegay dhowr casho ka hor intay iska soo tagaan marka sadkood soo dhawaado nabarkuba qabto intay meeshan joogaan iyo haddii nabarku qabto guriga kuu qabto intaad tiraa halay qaado dhakhtarka halay geeya dhakhtarka ku dhalaysaa halkanaa lagugu shaqaynayaa daryeel baa lagu siinayaa haddii ii sheegay aad dawo u baahataa lagu siinayaa haddii nabarka in lagu kululeeyo aada u baahato kalaa lagu kululeynayaa ilmaha yarka xaaladiisa lala soconayaa labadiina idinkoo fiican oo alxamdulilah oo soconaya tadinkaa ka baxaysaa hadda walaal waagi hore waa dhali jir gurigeygaan ku dhashay waxaana dhibana ima heli jirin labadaa jeer oo dhigbaxasno qadar rabi bay ahayde gurigeyga inaan ku dhalaa ii fudud walaale anigu halkaa uma soo safri karo inaad guriga ku dhashaa kuu fudud oo hadda jidoo la soc hadda markaad dhiig baxday hadda waxaa ii sheegtay inaad laba ilmooda hore dhiig baxday haddaad xarun caafimaad ku dhaali lahayd dhiig baxaas mar horaa laga hortegi lahaa hadeer badoo maxaa la ii sameyn lahaa hadeer badoo sakaraas oo intii lagula cararay xarun caafimaad laguma geyn oo dhiigga lama joojin maada fiicnaan hadhowna lagu hakamaada soo tegin ka waranba haddaad meesha ku dhashido lagugu daryeelo dhiig badan uusan kaa bixinba hadda haddii dhibi igu timaadaa la ikeeni hayaa dhe saas dhe haddii markaan dhalo kadib ama dhalmada dhib ka yimaado baa la ikeeni hayaa soo maaha mise anoo socdooba caafimaad qabaa bay nii imaanaya adoo soconayo nabarku ku hayo soconayaad halkaa kasoo gelaysaa waa lagu dhalinayaa inta xanuunka iyo dhibaatadii dhiigbaxa adoo xanuunsan lagaa soo balqbalqsiin lahaa adigoo fiican oo soconayaa lagu dhalinayaa dhiiggaagaa laga hortegayaa waa lagu daweynayaa ilmaha yar baa daryeel la siinaya hadduu u baahdo idinkoo caafimaad qaban hadhow baa soconaysa dhiig baxi baratoona kugu walaale waa haddii hadda dhibo timaado haddaysa waxba dhiba imaanin gurigeygaan isaga dhalaya caruurtayda reerkayga inaa iska dhex joogaa ii fiican inta sariiro baadiyo reer gurigiis iyo meelaana aqoonaaba ku dhali lahaa jidoy haddaan u baahdo markaasaan u baahdana laysoo qaado oo markaa de in lagu xaad lagu soo gaarsiinaya ma ogidba waxaa fiican wax in laga wixii qadaran waa ii qadaran yihiin qadar kasta horta ilaahay bay ku xiran tahay laakiin waxaa jira waxaa la yiri daweynta waxay ka fiican daweynta waxaa ka fiican ka hortagga ma fahantay haddii ka waran intii laga soo balaqbalaqsiin lahaa oo dhiig kaa bixi lahaa oo xaaladda serious gaar lahayd oo kooma geli lahayd adigoo fiican marka nabarku qabto lagu soo kaxeed halkan ku dhasho lagugu dhaliyo dhiigaaga laga hortago lagu daweeyo xaaladaada caafimaad la socda lagu cabiro aad fiicnaato hal habeen joogto ama xitaa subax haddaad dhashay garabtii aad fiicnaato gurigaaga baad aadi kartaa adoo soconay caafimaad qaba ma fahantay